barnaamijka xusuus reeb oo aad uga barateen had iyo jeer in aanu kaga warano sidaan horeba idinku sheegay waxyaabaha dhacdooyinka xagga taariikhda ah ee soo maray dhulka Soomaalidu ay degto 60kii 50kii ama 40kii sanadood ugu dambeeyay oo ay dhaceen waxaan hore Soomaalida u soo marin ayaa waxa had iyo jeer aanu marba ku soo qaadnaa cid ay noola muuqato in taariikhda ay wax ka xasuusan yihiin ama ay goobjoog ka ahaayeen barnaamijkan waxa marti noogu ah Maryan Xaaji Cilmi oo aanu barnaamijyo hore oo xusuus reeb iyo qaar kaleba ku wareysanay oo aan idinku cusbayn Maryan waxa barnaamijkan aan sida gaarka ugu soo qaaday ugu sababa waxaan ka helay marka ugu horeysay magaalada Hargeysa oo fursadii noqotay marka labaadna taariikhdaanu ka sheekayn doono ayay ka ahayd goobjoog ama dadkii ugu warroonaa ee amuurtaas iyo goobjoog ka ahaa waxaana ahayd markii la laayay wadaadada ama culimadii 10ka ahaa 1975 magaalada Muqdisho oo oran karo waxay ahayd fidnadii ama aafadii ugu horeysay halkii la inaga soo raacay ee keentay burburka baaba iyo wixii ka dhacay intii ka dambeysay dalkii loo oran jiray Soomaaliya Maryan Xaaji Cilmi iran taariikhdeedii ka xasuusiyay beledweyne ay ku dhalatay waxay wax ku baratay oo ku barbaartay magaalada Muqdisho waxa kamid ahayd gabdhihii farakutiriska ahaa ee nasiibka u yeeshay in waxbarasho dibadeed ay u baxaan oo heer jaamacadeed ah Talyaaniga ayay wax ku soo baratay waxa ay soo baratay culuumta siyaasadda ama political science markii ay dalka dib ugu soo laabatay horaantii 70meeyadii waxa ay noqotay macallin ama lecturer kulliyadii ama macadkii loo oran jiray Siidam ee lagu baran jiray maamulka iyo maareynta ee ku yaalay magaalada Muqdisho 1972kii waxa la sameeyay oo dawladii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxweynaha u ahaa ay bilowday ururkii ugu horeeyay ee haweenka Soomaaliyeed ay yeeshaan Maryan la fahanteeda ayaa gudoomiye ka noqotay 1975kii waxa dhacday amuur taariikhi ah oo aan doonayo aniga Maryan inaanu ka wada sheekaysano waxa inta dheer Maryan Xaaji Cilmi xagga siyaasadda ka sakow waxa weeye marwada madaxweyne ku xigeenkii dawladii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxda u ahaa ee Ismaaciil Cali Abukar marka horta mar labaad Maryan barnaamijka ku soo dhawow farxad bay tahay inaynu haddana mar kale halkan iska helno waa mahadsantahay taariikhda hore waan malaha dhameeyay qaybteeda hore inaan ka sheegay waxaad ku dari kartaa adaa ku dari laakiin waxaan jeclaan lahaa dhacdada xeerka qoyska wax la yiraahdo iyo haddaad haweentiin idinka daraadeed bay nagu gaadhay annaga iyo wadaadada wala nagu laayay sax marka halka ay ka soo bilaabantay iyo saad ku keenteen maxaad ka xasuusataa maxay ahayd dhacdadaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحسنتهي أديكو دعاء walaalkay saaxiibkay ah waxaan mahad u celinayaa TV-ga Home Cable oo aan aad iyo aad daawadaha ugu weyn oo ugu horeeya aan ahay on really sympathizer aan u ahay barnaamij kale ma fiirsado iyo anigoo maaragtay ka noqday macaamiil maxuu ahay Home Cable waxaan salaan u dirayaa ummadda Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan qodobkan maanta aan u fadhino runtii aad buu ugu duwan yahay qodobadii hore aan ducaalo isla soo marnay waa qodob aad xasaasi ah oo maaragtay xusuustayda aad ugu talaalan waxaan jeclahay cumrigan maanta jiro maalinta dhacday ilaa hadda weligeey maskaxdayda kama ay bixin oo waa wax maaragtay igu qafilan sida taariikhdeeda u sheegtay markaan soo noqonay oo ururka haweenka lay dhiibay anigoo maaragtay gabar dhalinyaro oo muxuu ahaa xalana ka soo baxday oo aan istusaalay inaan maaragtay ragga maaragtay aan ka karti badnaan karo raggii aan xalana ku wada jirnay Maxamed Xaaji Cilmi Maxamed Xawaadle Cismaan Jaamac magartay Xasan Keyd iyo rag badan baan ku wada jirnay marka waxa la yiri muxuu ahaa gabdhii Soomaali raggii wayba ka horeeyaan arrinkaas ayaa waxay noqotay in ururka haweenka anigoo macallimad caadi ah oo af Soomaaligana aad igu yar yahay ku barbaaray dhul gaalo
ayaa lii dhiibay ururka haweenka oo markaa maaragtay BRO la dhihi jiray dabcan ururka wuxuu required garan jiray inaan dibadaha aado waxaanan ahayn dowlad ahaan dowladda kacaanka waxay ahayd dowlad u janjeerto xagga shuuciyada socialism oo ma aragtay aanan cilmi ku dhisnayn oo aanan dadkana u bisnayn ama tacliinteeda aanan haynin ayay dowladda Soomaaliya adabgaraysay marka aad dadka shuuciyada la socoto dabcan influence-koodii ayaa aad ku gaaray waxa marka shuuciidnimada iyo dowladda maxaa la wadamada galbeed waxa aad ugu muxuu ahaa caan ahayd dumarka in la simo qaasatan markii dagaaladii koobaad iyo dagaaladii labaad laga soo noqday waxa la arkay haweenkii inay xubin yihiin firfircoon ama goobihii maartay shaqooyinka looga tagay intay ragga xabiga ku maqnaayeen marka in la simo oo yaani ragaba laga hormariyo ayay maartay adopt gareeyeen anaga as a muslim state oo dal maskiin oo soo karaya dabcan dal galbeed ama shuuci talaabaday qaadeen anaga ma qaadi karin laakiin waa isku daynay waan ku dayanay ururka haweenka markaa waxaa jirta shirar aan aadno Moscow New York meel walbo United Nations baa waxay markaa soo saartay baaq waxay ku magacaawday sanadka 1975 International Women's Year sanadkii caalamiga ah ee haweenka adduunka oo la simaayay marka saddex qodob waaweyn baa la soo saaray equality sinaan development horumarin iyo peace nabad dawlad walba iyo urur walba oo haween yaani waxaan ahayn sponsor by the United Nations marka arrin dawladeed bay ahayd ma ahayn wax urur iska wataan guddigii loo magacaabay International Preparatory Committee dhijir guddiga diyaar gareynaa sanadka 75 ayaan member ka noqday waxaana gacanta haysay Valentina Tereshkova oo ururka haweenka madax u ahayd يعني أنا واحد هين ضد لوطه صح oo ka tirsaneed marka United Nations iyada waxay ka tirsaneeday waa naag central committee ka tiib oo irka tagtay satellite maxay dayax Tereshkova dumar badan oo waaweyn oo United Nations ka shaqeynaa Helvesi bila naag liira dumar badan oo waaweyn baa jiray marka halkaasaan bartanka u galnay package-kii baan soo qaadanay waxaan nimiday wadankii waxaan markii dambe noola kala qaybay region walba Africa Asia inay shirar regional qaataan Soomaaliya lagu qabtay shirka oo preparatory committee ee maamulis dhinaca kalena waxa socday sharci oo la yiraahdo ahwaalo shakhsiya ama sharciga qoyska oo muddo badan ku dhaxmeermeeraysanay dawladaha Carbeed oo Islaamka oo laakiin u janjeera hanti wadaag waxa kamid ah Suuriya waxa kamid ah Iraq Cadan marka waxa la yiri ahwaal shakhsiya ama statuto personale ama sharciga qoyska qof walba si ha u yaqaanay afar qodob buu ka koobnaa qodobka socialka oo yaani xadidaad la xadidayo ragga iyo guurarka iyo yaani cadaalad darrada dumarka ku dhacayso waxyaabahan hadda maanta la wado kootada iyo adduunka iyo qoyska maartay sinaantiisa in la sineeyo qodobka afaraad wuxuu ahaa qodob aad xasaasi ah wuxuu ahaa dhaxalka qodobka dhaxalka inay gabadha iyo wiilka ay u siman yihiin wixii dhaxal iyo wixii xuquuq ah yaani bulshada ay ka tirsan anaga urur ahaan ma wadin wasaaradda cadaaladda wadi jirtay Cabdisalaam Sheekh Xuseen oo bariga ka ahay wasiir Sheekh Xasan Cabdullaahi Allah u naxariiste oo markaa ma aragtay xubin weyn ahaa xagga diinta Maxamed Aadan Maxamed Sheekh Ismaan guddi bay ku jireen anaga nalama ma aragtay weydiin anagana to be honest dumarka Soomaali waxaan ahayn dad aanba u baahneen markaan runta ku sheego in sharcigaana lagu dabaqo because dawladihii muslimka ah oo shuuciyada ah way fiiriyeen qodobada si carefully baa loo istadigaray waxa la yiri Ilaahay baan u dhacaynaa xuduudkiisa marka si silent ayaa qodobka afraad looga haray ducaalo anaga laakiin umada Soomaali tafsiir badan ma aqoonin quraankana wuu ku yaraay shuucinimana waa nahaysay yaani kama faa'iideysan dawladii Carbeed maxay yiraahdeen waxaan dhahnay ilaa waa in ma aragtay la hirgeliyaa sharciga wasaaradda cadaaladda wadatay marba alla ilaahay ureeji
muxuu ahaay oo aheeday gudoomiyaha jaamacadda gabadhii Soomaaliya ugu horeysay jaamacad ka baxday iyo anaga noola yeeray iyo nuurto xaaji xasan Allah u naxariiste maxaa ka qabtiin baana leeyahay way anaga opinionkaygu wuxuu ahaa anaga wiilasha Soomaali iyo gabdhaha Soomaali meel bay ku wada koraan segregation ma qabno lama kala soo taboo ma jiro gabadhii wiilka iskool bay wada dhigtaan waxaan doonaynaa sinaantayna inaan ku gaarno meritocracy karti maxaa kartidaas marka looga baahan yahay in dumarkii wax la baro in la hormariyo in aqoon loo yeelo ay ku shaqaysan karaan waad ogtahay Ingiriiska equal pay mishaarada wax la sameeyay maxay ahayd 1975 sinaanta ragga iyo dumarkana 1929 ayaa la sameeyay waa dawladii waaweynaa marka anaga waxaan dhahnay sharciga runtii markaan ku sheego waxa uu yahay iyo diin oo qusayna anaga ma naqaano aniga personally gabdhaha kale kama sheekeen karo way qof Europe ku kortay baan ahay iyo Borden Talyaani laakiin waxaan iska jecleen inaan anaga ku gaarno sinaanta ma garatay anagoo dumarkii maartay horumar kacankana wuuna jeclaa way xubintii ugu weyneed oo taageerayso ayaan ahayn xagga haweenka waxa dhacday marka maalin baa waxa la yiri qabsada maalinta haweenka 15 kama yahay annagana Soomaalida dumarkeen waxaan maalinta haweenka ee dumarka Soomaaliyeed waxaan ku beegnay 11 Janaayo 11 Janaayo sidaad ogtahay waxay ahayd maalintii ha noolaatada leegadii ay dagaalamaysay oo gabar xawtaa kala yiraahdo lagu dilay bartamaha xamar oo gabdho badan oo maartay Soomaaliyeed oo qaar hadda nool timir ukaashi la xirxiray marka munaasabada ayaan maartay dooranay symbol ahaan 11 January way package United Nations kana waan wadanaa golaha sare aan tagnay maxamed siyaadan u geynay waxaan dhahnay arintaana jirto waxaana doonaynaa baan iri inaan dabaal degno okay go ahead waxaan sameynay ololo cajiib ah gabadhii pilotka ahayd tii taqtarada ahayd tii askariyada ahayd name it all walk of life yani dhinac walbo oo nolosha bulshada gabdhii ka tirsanayaan waxaan sameynay banaanbax weyn oo stadio Koni la isugu tagay gabdhii baareed bay galeen xubin walbo dumarkii Soomaali hidii dhaqankii bay muujiyeen gabdhii mutacalimiinta ardaydii gabdhii secondary-ga dhigana adigu meeshii waxa ka dhacay dawladtus cajiib waana ka marxay stadiumka marka intaan la imaan ayaa waxa dhacday golaha sare oo kacaanka uu maxamed siyaad hogaaminay in la yiri war maanta dumarkii baa dabaaldega United Nations waxay soo saartay qodobo maxaan u qaban karnaa lagama fiirsan sharcigan hal aqriyo sharcigan mihirgeli karaa يعني emotion با maamulka dhan dalka emotion baa lagu maamulay waxa yiraahdo baas marayna sharcigan just like that heerka qoyska way wuxuu yimid goobtii buu yimid madaxweynihii iyo nimankii golaha sare kacaanka kulligood iyo golihii dawladda khudbada la qaatay aniga furay personally waxaan maartay in yar brief yar siiyay in maartay sanadkan uu yahay sanadkii ururka haweenka markii dambe xasan abshir baa gadaashay qaatay oo duqa magaalada ahaa ani asaga labada dhinac baan kaga taaganahay madaxweynahana bartankeenu taagan yahay markii xasan abshir ku soo dhaweey madaxweynaha hadda stadiumkana madax mahane wax kale meel banaan oo muuqdo ma jiro waa bari adiga wax kasta sheeg madaxweynaha khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oo adduunka laga maqlin caalamul islaam annagana nagu noqotay surprise ma garat yaab ma ya farxad iyo surprise wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo hadda ilaahay hay wacdaaba dambeyn sheego waan ag taagnaa wuxuu yiri maanta haweenkii buu amaanay wuxuu yiri waa xubinta kacaanka maaragtay ugu firfircoon aabooyinkii buu kondaam gareeyay wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax la yiraahdo nus ma jirto ma garatay wala rubac wala tumun ma jirto ragga dumarka waa simanyi maxamed siyaad barre kuma u ekaysanin inta annagana farxad baan la dilaaci rabnaa mashaarad laakiin wuxuu galay bad kale oo annagana qusayn wuxuu yiri bal diinta islaamka dib ha loo dayo waxaan maraynaa 1975
intaanan rasuulkeena maxaa la sallallahu alayhi wasallam imaan gabdhaha waa la aasi jiray carabta quraysh quraankii baa yimid oo mahad ha ka gaadhee waa laga mamnuucay ayad baa ku soo degatay intuu sheegayay okay bay ahayd wuxuu yiri muxuu ahay ayad walba eventska markaa imaanayay ayaa bedelayay virtually quraanka boqolkiiba cotton waa isbedelay buu yiri ma garat haddana waxaan maraynaa uu yiri 21st century qarnigii 12 ha 1975 baan maraynaa marka sidaa darteed waa simantihiin wow garoonkii dhan baa isqabsaday ma garat aniga waxaan ku dhawaaday isaga dhan intaan qabsado aan dhulka shaka buuxiyo mana garanaynin anaga sharciga qoyska xagga baabka iyo islaamka ama diinta weegi ku xiga banaan bax weyn baan sameynay qamiistan banaan baxnay jimcaheedii oo masaajidii xamar la isugu yimiday ayaa tii ugu dheereed ka dhacday waxaa qabsaday dhalinyar masaajidii bay qabsadeen waxay tarjumeen khudbadii madaxweynaha oo sideedii aan waxba lagu darin waxaa meesha maartay ka dhacday marka dood diineed oo madaxweyne muslim oo islaan oo ulil amri islaan ayaa wuxuu yiri ragay dumarka waa siman yihiin ilaahina nama simin khudbadan madaxweynaha tiri halkii baa maartay waxaa ka kacay buuq maalinta maxamed siyaad ceel jaalow jiray markiiba taar baa loo diray waa la ogeysiiyey magaaladii waa laga qabsaday magaaladii waa laga qabsaday amar baa la bixi bulsima taar inay masaajidada gasho oo mikrofoonada demiso oo dadkana dareeriso oo wixii khudbadeynayna la soo xiro sidaaba waxaa lagu xiray 10 dhalinyaro oo wadaad 10kii isla wiigi waxaa la geeyay maxkamadda waxaan kaa kale iloobay 1971 kacaanka kan wuxuu ka soo guursaday Suudaan sharciyo la dhihi jiray 26 article qofkii banaan baxa waa dil qofkii hebel waa dil wax alaale wixii subversive oo dawladda ka soo horjeedo waa dil article 54 waa tay maaragtay waa tay ragii golaha sare dhexdooda lagu apply gareeyo Allah u naxariisto salaad gabeeri caynaashay dheel ay maaragtay ku dhacday fallaadha sharcigaas oo ahaa marka sharciga wadanka yaalo dawladda sharciga bay u tiigsatay wadaadadii waa dil baa lagu xukumay mar alaala markii dil lagu xukumay ayaa maxay ahaday wuxuu yiri shir degdeg ah tiyaatarka la isugu yimaado ururradii oo dhan wuxuu u yeeray muftiyiintii culimadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed waxaan ka xasuustaa Sheekh Ali Suufi waxaan ka xasuustaa Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi waxaan ka xasuustaa Sheekh Maxamed Iimaan waxaan ka xasuustaa Sheekh Abuukar Maxla Suulay yani adigu muxuu ahay culimadii ugu waaweynaa hadaa Sheekh Ali Suufi waxa lagu waday raar miskiinka wheelchair khudbad buu la kacay as usual ani xasan abshir waa ag taagana wuxuu yiri been baa layga sheegay waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culimo waxaan rabaa buu yiri inaan weydiiyo ummadda Soomaaliya culimada aan aniga qabtay ee aan dilka ku xukumay waa kuwee war culimadii dalka xukumtay waa kuwan hortayda safan Sheekh Hebel oo istaag Sheekh Hebel oo istaag Sheekh Hebel oo istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimada aan dilay waa war dhalinyaro sakhraamiin oo ciyaala suuq oo imberelida caalamada dabada ka wado oo maartay qalqal dawladda galiyay ayaan xiray oo dil ku xukumay waa kuwana waxaan ku sheegaa ducaale aniga at that time diinta maan aqoon laakiin hal nin oo wadaad oo yiraahdo waa beenta hal nin wadaad oo yiraahdo waa qalad kidigood way wada aamuseen maxaa u malaysa marka shacabka Soomaaliya ma garat marka lobbying baa bilaabmay wada hadal waa loo tagay saad ogtahayne dawladda maartay Maxamed Siyaad golihii sare wuxuu siiyay full authority amnesty-ga asagoo leeyahay
inuu maaragtay waxyaabo qaarkood asaga power Asaga u power leeyahay gooni u leeyahay. marka waxay ku magacaabeen full power oo in ayaga waxba ka qaban karin aniga personal waa u tago waxaa rajaal siyaado sharci baan wadnaa hanooga qasin dhiig iska sii daa ama xukun culimada ay naga ha taageen. isla markii jaraa'idada adduunka waxaa lagu soo qoray the bloody sexual equality in Somalia sinaantii dhiigga dhegta loo daray marka waxaa yidhi arrimahaasaan wadanaa United Nations baa wadato jaale madaxweyne inaga daa wuxuu yidhi ma idinkii dumar ahaa ragga idinla simay ee aan idinkaga hiiliye ragga ayaa sidaa iila hadlaya wallahi waxna ila hiiliya ma lahu yidhi wadaadada waa kuwa guryaha quraanka iyo cuntada siin jirteen adee nimankaana wadkoodii ayaa meeshaa galay waat dilkii baa lagu xukumay 3 qamiis qamiistan banaan baxnay iyo qamiistii dambe iyo qamiistii ayaga ee jimcihii la xiray la xiray oo la xukumay adiga 26kii January 1957 waa la toogtay habeenkii marka uu biriyo kale la toogana qof walba warid buu yahay subaxii salaadii 6 baan gurigeyga ka baxay waxaan aaday jeelka General Ismaaciil Axmed Ismaaciil xaaskiisa ila socotay waxaan iri kaali iigay xafiiskiisaan fadhiisanay ducaalo waxaan iri adeero balka waran nimankii saano madaxa u luxaa asaga wuu yaaban yahay barkee inta uu asluubta ay dad un buu tiirka geynay wuxuu yiri noloshayda weli ma aan arag buu yiri 10ka dhalinyaro ya ee saaki la toogtay buu yiri dad lamid ay weligay ma aan arag maxaa dhacay adeer wuxuu yiri horta waa diideen wixii la isku durdurji habeenkii oo dhan quraan bay akhrinayeen nin walba asagoo degan waana dhalinyaro ma ay weyneen 30 xataa ma ay gaarin nin walba asoo degan buu quraankiisa akhrisanay dardaaran ayay wada qoreen dardaarankii buu soo saaray ونو أخرناي هبل يا هبل وحويري إن الله مع الصابرين متكل وحويري حاسكي قف مهر كذا وإنت متكل أنا وحويري الذين يقاتلون في سبيل الله إلهي درتي سشهداء لو دلو يعني وشهاد بوها إلهي درتي سلو دلو آية القرآن الوقف صديها لو دلو مكته الذين يقاتلون في سبيل الله وابا هذا هنقرنا أنا to be honest أنت مركو وذي وبعد مقالدي وحكير الدوق ونقول قد لما قال لبد يارو لبد اللي يرضوا وضعان أو ميليتريا يا مركي دولا ين أي كلا اللي حنا ين يا لبد يدبوا الدم بسكون دفتر لو فشدي هرت مقالدي الدم با قريرتي قودي كده عذي إن أنا وحكو كده عي حافتي وبريو تقانوعان 15 guryo la hurdo ayay mareen inanka kalena wasaaradda gaashaandhigga agteedu ku dhacay ayuu ku dhacay kaaga daran maryanay aan kula xasuusta anaan ku sii xasuusiyay xaafadda ay ku dhacday maalintii la dilay dadka waa loo daawasho tagay Soomaali ana kamid ahay waxa tagay goobta Ismaaciil wuu istaagay anaga dhan waa wada istaagnay askartii oo wacay maxaa dhacay waxa la yiri diyaaradaha dhacay halkii baan gaari ka qaadanay ma kaaga sheekeen karo scenario meesha yaalay ma ba kaaga sheekeen karo dad badan oo taqaanidna way ku dhinteen oo waxaan ka garanaa Ibrahim Dirir xaaskiisa iyo caruurtiisa aroortii horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo roob yar oo tiixtiix ayaa daay arintii marka waxa lagu fasiray jawaabtii ugu horeysay Ilaahiga Raxmaanka inay dhacday waxaan ku sheegaa ducaalow marka Ismaaciil markii aad u tagteen intii aan markii aad ololaha ka wadeen inaan la dilin cid walba waxa isku dayday anaga u rahweenahan ugu tagnay in laga badbaadiyo waa la isugu tagay waalidka diiday waa la diiday jaamacadda carabtu way soo gashay dadka carabtu way soo galeen malaha waa laga diiday waa la diiday maxaa u sabab ahaba yaa markaa la leeyahay waxa uu diiday ama cidna u maqli waayo diin dhageysan waay waxa sabab u aheeday mainly sidee baa layga hor yimaadaa sidee baa dowladayda yani la saga ahaa imaamkii dhamaan sidee layga hor yimaadaa haddina way jirta ducaalow waqtigana waa jiray laakiin waxaan ku sheegayaa inta dhaceysay culimadii Soomaaliyeed ee aqoonta lahaa shicibkii Soomaaliya
garanayay waxaan cidna may hadal cidna ma hadal alla ilaahay waxaan xusuustaa hooyadii Allah u naxariistaa waxay tiraa naa ilaahay nama simin naagyahay fadhiiso ilaahay nama simin kasana maxaad ku hadlaysaa hooyo naa ilaahay nama simin hooyo waxaan ka har hooyo waxaan ka har arrintii sidii bay ku dhacday ragii waa la togtay waxaa nagu dhacay embarrassment shirkii New York markaan tagnay oo la yiri dawladda Soomaaliya human rights ka haysato waxaan bilaabay aniga personal inaan maaragtay isdaafacno annaga ururkeena haweenka shaqo kuma laha ragaasna waxay ka hortageen 26 article adiga ceenka kamid baan ahayn wixii dhacay mas'uuliyadeeda ummadda Soomaaliya dhan baa mas'uulka ah waxa ka dhashay maslada waxa ka dhashay horta aniga Maryan ahaan 2 bil kama dambeeyeen wadaadadii way shaqadii weynadan hay somehow adiga ama mucaaradnimo haata ama iska hor imaad dawladda oo maxamed siyaad ilaa anaga isagaan xukuumay BRO adigu somehow ilaahay maartay waa iska hor imaanay maadaama dawladna ku jiray waa la iga xishooday afarta darbiyo madaxweyne ku xigeenka adigu gurigayga baan ku laabtay adduunka cid aanan sanction nagu sameeyay caalamka maxaa lahaa islaan ma jirin sharcigii qoyskana oo loo dhintay waa hirgeli waay magacyo badan loo yeelay cali xiliin baa loo yeelay dumar baa maxkamadaha la geeyay adigu ilaahay qudradiisa sharcigii meesha waa ka dhaqaaqi waay maalinta caradii rabbi sidaan aniga hadda taariikhda yacni u soo arkay caradii ilaahay ee kaga dhacday Soomaaliya ee qof islaan oo Soomaaliyeed daafici waay ayaa dhacday ducaalo maxaa kamid ah markiiba horta waxaa bilowday 1975 horta waxaa la ruqsay wax alaal wixii DG sheegto iyo safiiro oo administrationka civil service ka koorkiisa ah intii ugu qiimaha badneed oo ugu cilmi badneed 5 agaasimayaal guud iyo mareeyaal yaa hal maalin laga taqalusay korneeladii waaweynada wadanka ruushka 1963 markay Soomaaliya ka carootay OAU foundationkeedii Ethiopia ayaa Soomaaliya galbeed leh oga caraatay armamentki aan galnay ay Soviet Union sponsor noo aheeday ayaa korneeladii iyo askartii la soo tababaray ayagana waa ruqsay oo Afrika oo dhan aan ugu quwad weyneen ayagana waa laga taqalusay waxa loo diray meel la foof la yiraahdo iyo tacliin iyo kacan diidnimo ka soo maartay brainwash halkaas loo diray halkaas ka bilaabatay muddo dabadeed waxa dhacay xisbigii hanti wadaaga la sameeyay markii dambana waxa la istusaalay dawladda Soomaaliyeed in Ethiopia markuu Mengistu Haile Mariam ka dhacay maxay ahaday Haile Salaas markuu dhacay oo in yaro military qabsaday oo crisis galay dawladda Ethiopia ay gashay crisis inaan ka faa'iideysano janska watan la isku qaaday ruushkana raali kama ahayn adigu watan lagu baaba'ay wax ka soo harayna way yaraayeen aqoontii militariga ragii waday way ku dhamaadeen soo noqodkiina waxa dhalatay diidma dhalatay Hargeysa waxa lagu toogtay 6 maartay sarkaal diidma bilaabatay ragii kale xamar tagay waxay isku dayeen inqalaab diidma bilaabatay ayagana fagaara xamar baa lagu toogtay maxaad u maleysay 10 wadaad ya marka fidnadii soo bilaabantay 75 halkaas ay ka wadato sidaan aniga aan interpretation ay igu la muuqato marka 79 ka maraysa iyo markii inqilaabkii xataa la isku dayay inqilaabkii la isku dayay 17 wiilo military ah geedka la saaray jabhadii soo dafbaa maartay abuurantay baraakadihii iyo bari iyo Puntland population koodii baa maartay la baabashay adigu disaster oo mid walba mid kale ka dambeeyo waxa ku xigtay marka haddana silsiladii Somaliland Soomaaliya waqooyi in iyadana maartay dawladii daafici lahayd cadawga ka daafici lahayd inay magaalada shicibkii maartay ay ku garaacdo in the meantime aniga Maryan ahaan ilaahay hadaayad buu igu soo riday way adiga ku dhacday aniga saam kale ku dhacday wadiga yiri shaqadii horta markii baan shaqadii waan ka fariistay adigu ilmo daldalo iyo maartay household baan noqday wadaadkii markii la xiray ayaan masaajid galay
sheekh cali suufi ka soo horjeeday odaygaagii waa la xidhay Ha. madaxweyne ku-xigeen Ha. oo isagana iska hor marka shicibkii baa noola keenay ma ogtahay adaa markaa dabaqadii sare waana laga soo xisaabtaadii baad gelisay oo markaa marka daadaa isku diray maya odaygii mise maya mise waxaad adigu leedahay- adigu dee asaga naftiisa diidmadow galay sax diidmadow galayoo yacni daacadnimadii iyo dowladdii uu qabtay runtiina waan ku cambaarayn jirnay annaga dadka wixii ka dhacay golaha sare kacaanka member baa ka tahay haddii kale markaasaad diidi lahayd yacni family ahaan annaga maaragtay isku tuuri jirnay arrinka asagana diidmadii buu galay oo concern buu ka noqday aweer wixii waqooyi iyo maaragtay iyo dagaaladii wixii ka dhacay adiga markii la xiray oo aniga shicibkii maaragtay noola keenay yaan tasfiir galay maasha allah masaajid sheekh nuur la yiraahdo kaasi populaar ducaalow haddii sheekadan dee dadka ma rumaysanayn markaas saa u fariistay dee dumarkii dugsiyada ka qaylin jiray oo yaryaraa alif wax ma la dhihi jirin kitaabadooday haystaan annagiina lagu soo kori karabaatada iyo shaatiga cadiya maxaa lahaa baadiri talyaanina waxba ma naqaano waxaana isku sheegaa markaa inaan mutacalimada والمسلم له ilaahay qudradiisa waxaa laga bilaabay الرجال قوامون على النساء سورة النساء ayaa laga bilaabay anoo sidaa u fadhi waxaa suuratu nisaa oo ma wax nisaa la yiraahaa jira dee haa waabad ujeedaa oo alrijaala qawaamuuna cala nisaa macnee maxay tahay nimanka dumarka waa ka sareeyaan oo waaba aayad qur-aan oo ilaahay sheegay haa oh my god oo maxaa samayseen maaragtay taariikhda ya waxay ku dhacay shock oo run ah waxaa igu dhacay laabtayda waxbaa ku dhacay oo yacni inaan crime weyn ka mid noqday anigu ma bilaabin waa ku jiray systemkii baan ku jiray madaxaynaa loo dila rag xageen ka maqanahay laakiin anigu intentional ayaga ma dilin qur-aankana maan aqoonin markaasaa inta gacanta taagaar ilaahayow maanta wixii ka dambeeya 114 qur-aanka I take it waxaan u qaadanaa sida ay tahay xuduudkaad maaragtay dumar ahaan ay geysano waan qaatay horta halkaasaan 3 sano maaragtay qur-aanka baranaya maasha allah marka nimo badan oo diijiye iyo nimo badan oo wadaadaha dhigan jireen markii masaajidka laga soo baxo yaa waxaan raadsan jiray dhowr oday oo habeenkii tiyaatarka safnaa adeer oo idinka og aayadda qur-aanka الرجال قوامون على النساء واي هذا قولاتين دولة الصومالي إنه وذا دش واي هذا سلطان جاهل أيوها لقى مخرج معك سوى غور المية ريرة تمن كيرة بكور تكتي يا if I had known هدان أقال لها وأن دين مركا كجرو والله بالله وانقل لها أنا جاب ساء وقرنا هدي أن شاء الله صبرتي إدردرتي إذا يقاني أو أوير أها أد أهر سدن إن هذا مستان waa marka horta inkaarta ugu weyn halkaas ka soo bilaabay halkaas ka soo bilaabantay Soomaali waxa uu bilaabmay dictatorship civil wars waxaana nasiib darre ah qof gartay oo yiraahdo war maxaan halaynay halkay naga soo maray xageena laga soo galay war waa wadaadadii la toogtay toobatan suux way furanta anigu ilaahay waxaan weydiistay cafis laakiin ilaahay bay agtaala haduu biri maartay ciqaab doono in kale laakiin waa inaad ogaataa wixii dhacay inuu qalad ahaa dagaal sokeeyaa dhacay muqdisho la isku baabiyay Soomaaliland baa goosatay waxaa bilowday war lord 20 sano bal ilaa yoomana hada lama nasan magaalada xamar waad u socotaa extremism diini baa yimiday dawladii maartay la raadi in ay hantiso dawladnimadan waatan maartay wareerka adduunka ku jirto marka anigu waxaan aaminsanahay ummadda Soomaali maalinta kitaabka Ilaahay loo gafay ee aayada quraanka la bedelay inay maartay salka ku hayso wix allaale wixiina helay maxaa ma doonayeen sheeko kale ku geliyo Maryane sax way meel adag baad qabsatay waa sax marka markii hore taariikh baynu ka sheekayn sax laakiin iminka line gooniya yaad qaadatay oo runtii aan filayo dad badan oo ina daawanayaan inay ama markhaatiga kugu furi karaan sax ama ay wax cusub ku qaadan karaan in waxaan la garan laayahay
warun iyo dhibaatadan dhacday warun ay ma garanaysaa tahay inkaar markaad dhinac ka eegto Sax, caro inagu Allah. dhacday ama cadho alle saa tilmaantay oo laga ducaysto sax halkaa ku dhaafin maaye waye ugu dambaystii maxaad odhan lahayd ha la yeelo imika soomaaliya horta soomaaliya way kala baxbaxday oo waad u jeedaa sida la isugu soo noqdane aad iyo aad iyo aad bay u adagta aniga waxaan aaminsanahay mar haddii inkaartayna ay ka bilaabatay diinta oo kitaabka ilaahay loo gafay haddaan annaga ilaahay towbadana socda aan qaadano waa in ummadda soomaaliya ay kitaabka qaadataa dowlad islaan eh inaan iska dayno socialismidii iyo maxay aheeday qunyar socod iyo muxuu ahay demokrasiyadan maaragtay dadkii ka dhigtay dhiiranaan qof walba maaragtay uu televisionka soo istaaga inta in laga tago the only thing oo wadankan ku qabooba waxa weeye gobol walbo ama maaragtay dowlad walbo inay kitaabka ilaahay qaadato kitaabkan lagu dhaqo marka aniga waxaan qabaa in la raadiyo diinta saxa ah oo saxa ah oo sidii sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam noo faray inay ummadda soomaaliya ku degi karto ku degi karto taana waxay ku degi kartaa markay soomaaliya dhan inta istaaga yiraan ilaahu naga cafi diintii aan taataabanay ilaahu naga cafi mideeda kale ilaah baa na faraabo haddaad madax tahay udiicu allah wa udiicu rasuula wa ulul amri minkum soo waxaa garatay ma inaan islaamnimo ku dhaqanno sax maaha inaan qaadano maxay aheeday western style okay ha fidnadan aad maanta barnaamijka kaga sheekaysay sax oo aada leedahay waxay ka soo bilaabantay markaa culimada la laayay sax haweenka daraaddood bay ka bilaabantay I know ma laga yaabaa maantana fidno kale inay noo bilaabanto oo haweenkiinu qabyaaladna hayga ahaatee sax waxaad bilowdeen prime minister nimadoon iyo wasiir nimadoon iyo annaga kootada iyada halana siiye iyo Sax. inay cajaladii dib usoo noqonayso ma kuugu muuqataa oo halkaana wax kale ku jiraan maya laakiin waxaan ku oran karaa horta bini aadanka hadduunan aqoonta diiniga lahayn wax walba umi baa ka tahay ducaalow anigu maalintan arintaa falka aan ka ahay member historyga igama harayso anigu diin wax la yidhaha ma aan aqoonin waxaan baa aada u aqaanay westernka maaragtay arrimahooda laakiin markaad diinta barato waxaad ogaanaysaa xuduudku ilaahay ku istaajiyey sinaanta ma aha kaliya inaan rag daba orodno waa inaan marka hore kitaabka baranaa muxuu ilaahay ii ogol yahay aamintu bilaahi ayaan iri soo maa dee marka wax ilaahay kasoo horjeeda miyaan wadi karaa waa maya oldoo aan ogahay maanta 30 sano ugu dambeeyay ama 40 sano ugu dambeeyay ee burburkan dhacay hadaynan haweenka Soomaali ahayn ummadda Soomaali ma taagnaateen ma garatay waxa ordaa bread winner ah iyo waxa maartay shaqeyna ama waxa human rights ama civil society ka shaqeyna wado wixii caruurta hay gabdhihii Soomaaliya Yurub tagay ee la balanbalaa caruurta aabalaanta waa gabdhihii Soomaali laakiin aqoontii diiniga nagu yar jawaabta waxa fiicnaan leh inay ku jawaabto gabar Soomaaliyeed ee kitaabka dhameysay ee xadiidka dhameysay ee tafsiirka dhameysay inaad tira kaalay walaashay gacaliso ma rabtaa inaad madaxweyne noqoto rag masaajidka ka tujiso oo iimaan u noqoto laakiin waxa jiri karta waxa jira boqol hawlad ay gabadha Soomaali qaban karto hada carabta daarati baanan oo haweenka u gaaraha jiro maamulayaasha waa haween waxa jira iskuulo waaweyn oo haweenka maamulaan waxa jira taqaatiir badan oo gabdho carbeed oo yacni hawshi yacni society-ga waxyaabo badan ka qaban karta laakiin kursiga kulul iska daayay laakiin kursiga kulul aniga waa ka soo horjeedaa gabdhaha xuquuqdooda in la siiyo oo xuquuq diineed ah how far ayaa darajo lay dhiibi karaa ma ahan inaan selfish noqdo oo nira ilaahay maartay maxaa ka macna iyo sinaanta maaha war aniga waan soo maray maraan sinaan warday waa to be honest nadaalo waxa dhici karta gabadha Soomaali inay 100 milyan oo rag ka karti badanta laakiin ayadii quraanka ku hortaala miyad ka hortagi kartaa ayadii quraanka barlamaan waa gali kartaa oo Sheekh Dirri waa sheegeen iyo Sheekh Mustafa Ismaaciil oo muxuu ahay gurto waa gali kartaa
ma garata oo wasiir waa noqon kartaa iyadoo maaragtay sidii gabar islaami u labisan maanta hawsha ee zamzam cabdi aadan wado waa hawl khayriye oo yacni caruur iyo tacliin ayay ka daba orday nimco qowdhan caafimaad bay ka daba orday shukri waxay ka daba orday waxaan ka wadaa Somaliland bulshadii sidii kor loogu qaadi lahaa yes taas waan ogola laakiin aniga raggii iyo aniga aan sinaano ereyga equal meesha bataaldi anigu from 82 ilaa maanta waa ka soo horjeedaa aad baan uga soo horjeedaa aad baad mahadsan tahay Maryam Xaaji Cilmi waxaan filayaa in haddii ay beedmo barnaamijyo kalena kulley waxaan ku dhamaystiraa ummadda Soomaaliya ha duceysato oo ilaahay ha loo noqdo oo dadka dilka ha laga daayo powerka maaragtay oo kursiga loo ordaaho wadaadnimada la iska gelinaana ha laga baxo diin saxana ummadda ha la baro aad iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa waraysigii aanu la yeelanay barnaamijkan xusuus reeb Maryam Xaaji Cilmi oo qaybo hore oo xusuus reebana aad kula kulanteen Maryamna aad ayay u mahadsantahay adaa mudan